السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال meel walba oo daafaca caalamka naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan warkii laanta afka Soomaaliga ee telefishinka qaranka oo si toos ah idinkaga imanaysa Addis Ababa waxaan idin waramaya anigoo Xamdi Maxamuud wadamada soo koraya ee qaaradani Afrika ayaa la sheegay inay u baahan yihiin 330 bilyan oo dollar si ay uga soo kabtaan saameynta dhaqaale ee fayraska corona Cabdullaahi Raabi ayaa faahfaahinaya waxaa jirta in magaalada Paris ee xarunta dalkaasi Faransiiska lagu qabtay kulan caalami oo ka wada hadlaya sidii loo caawin lahaa wadamada soo koraya qaaradda Afrika ee saameynta baan ee dhaqaaluhu ay ka soo gaadhay safmarka COVID-19 haddaba kulankaas oo ka soo qayb galeen madax ka kala socota qaybaha kala duwan ee adduunka dadka ka soo qayb galay waxaa ka mid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Federaalka Itoobiya Sahlawork Zawde madaxweyne Sahlawork waxay kulankaasi ka soo jeedisay in wadamada horumaray adduunka iyo macadiyada ay hay'adaha maaliyadda adduunka looga baahan yahay in jawaab degdeg ah ka bixiyaan gargaarkaasi loo fidinayo wadamada soo koraya qaaradda Afrika ee saameynta baan ka soo gaadhay COVID-19 iyadoo la eegayo mugga iyo baaxadda dhibaatadaas ay leedahay waxay madaxweynuhu sheegtay in gurmadkan uu hindiseeda leeyahay madaxweynaha dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron uu yahay mid waqtigiisa saxda ah la joogo haddaba wasiiru dawlaha wasaaradda maaliyadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Federaalka Itoobiya oo ka mid ah wafdiga Faransiiska tagay hogaaminayso madaxweyne Sahlawork Zawde Yasmina Abrabi waxay sheegtay in madaxweynuhu ay si adag uga hadashay sida loogu baahan yahay in gargaarkaasi loo baahan yahay loo gaarsiiyo wadamada soo koraya qaaradda Afrika ee dhibaatadaasi waxyeeladu ay kaga timid waxayna wasiir dawluhu sheegtay in madaxweynuhu ay sheegtay in si degdeg ah loogu baahan yahay in codsigaasi laga jawaabo waxayna mahadnaq ballaaran madaxweyne Sahlawork Zawde u soo jeedisay madaxweynaha dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron oo hindisaasi la yimid iyo hogaamiyaasha wadamada horumaray ee adduunka iyo macadiyada iyo hay'adaha caalamiga iyagu jawaabta wanaagsan ka bixiyay codsigaasi loo baahan yahay waxaa kulankaasi ka qayb qaadanaya madax badan oo ka socota wadamada qaaradda Afrika hogaamiyaasha kooxda loo yaqaano G7 iyo G20 iyo macadiyo kala duwan oo caalami ah munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay oo lagu maamuusayay toddobaadka dhaqanka dalkan Itoobiya ayaa laga furay magaalada Addis Ababa ra'iisul wasaaraha dalkan Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in sharafta iyo xorriyadda dalkan Itoobiya una gorgortan gali karin wariyahayga Nasridiin Xasan ayaa faahfaahinaya xuska toddobaadka dhaqanka Itoobiya oo si heersare loo soo agaasimay ayaa ka socda caasimadda Addis Ababa xuskan oo ay ka soo qayb galeen bahda dhaqanka iyo fanka deegaanada dalka iyo labada ismaamul magaalo ayaa looga dan leeyahay sidii loo xaqiijin lahaa isdhexgalka iyo midnimada shucuubta isla markaasna kor loogu qaadi lahaa ilaha dalxiiska iyo dhaqanka Itoobiya caanka ku tahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo munaasabadda toddobaadka dhaqanka ee Itoobiya daafray ayaa kaga dhawaaqay in Itoobiya ay tahay dal taariikh fac weyn leh isla markaasna waxa uu ugu baaqay shacabku inay muujiyaan isjacayl iyo midnimo si loo taabageliyo jiritaanka Itoobiya iyo sumcadda ay ku leedahay dalalka caalamka ra'iisul wasaaraha ayaa kula dardaarmay shacabka iyo dhalinyarada in looga baahan yahay inay bartaan taariikhda iyo dhaqanka sidoo kalena ay fursadan uga faa'iideystaan aqoonta ay u leeyihiin kheyraadka dalkooda በዚህ ሳምንት እንዳያመልጣችሁ ሁላችሁም በመምጣት waan soo celinaynaa sumcadda iyo sharafta waddankeenna ayuuna idin dhaafin waa toddobaad dahabi ah oo taariikhda baal ay ku yeelanayso waxaan idin rajaynayaa geestooda wasiiradaha wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska haweenka dhalinyarada iyo caruurta iyo horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha dawladda federaalka Itoobiya oo munaasabadda toddobaadka dhaqanka Itoobiya ka hadlay ayaa sheegay in Itoobiya ay leedahay kheyraad dihin isla markaasna loo baahan yahay in la sii xoojiyo isdhexgalka dhaqanka iyo kheyraadka dalkeena si loo xaqiijiyo sharafta Itoobiya ay ku leedahay wadamada caalamka guud ahaan munaasabadda xuska toddobaadka oo socon doonta ilaa bisha Gombood 16keeda ayaa la filayaa in lagu soo bandhigo munaasabado kala duwan oo dhaqanka kor loogu qaadayo madaxda deegaanada Oromiya Axmaarada iyo deegaanka Koonfurta ayaa sheegay in diyaar garow ballaaran ugu jiraan raadka cagaaran ee sanadkan 2013 mar kale Cabdullaahi Raabi waxaa la ogsoon yahay in si rasmi ah loo bilaabay ololaha raadka cagaaran ee 2013 oo halkudhag looga dhigay Ethiopia Nuhuwino haddaba
madaxda deegaanada Oromia, Ahmaarada iyo Koonfurta Itoobiya oo ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb qaatay barnaamijkaasi lagu bilaabayay ololaha cagaaran ee 2013 ayaa iyagu ka hadlay diyaargarowga ay ugu jiraan ololaha cagaaran ee 2013 ee deegaanadooda. madaxweynaha deegaanka Oromia Mudane Shimelis Abdiisa ayaa sheegay in deegaanka Oromia laga diyaariyay 4.5 bilyan oo geedaha tallaalka oo lahan lagu beerayo. wuxuuna madaxweynaha deegaanku intaas uu ku daray in la diyaariyay in ka badan 1 bilyan oo geedaha tallaalka ee bunka ah oo lagu bedelayo geedaha bunka ee gaboobay. wuxuuna intaas raaciyay in la diyaariyay dhulkii lagu beeri lahaa oo dhan 1.7 milyan oo hektaar. sidoo kale madaxweynaha deegaanka Ahmaarada Mudane Agenyo Tashaagar ayaa sheegay in deegaankaasi Ahmaarada uu ka socdo diyaargarow lagu diyaarinayo 1.83 bilyan ilaa 2 bilyan oo geedaha tallaalka ah oo loo adeegsan doono ololahaasi oo ku jiraan kuwa dibadaha loo dirayo. madaxweynaha deegaanka Koonfurta Itoobiya Mudane Risto Yirdaw ayaa isagoo dhankiisa ka sheegay inuu socdo diyaargarow ballaaran oo lagu diyaarinayo geedaha tallaalka iyo goobaha lagu beeri doono. wuxuuna sheegay madaxweynuhu in goobaha roobabka baligi dulba ay ka da'een in laga bilaabay geed tallaalista. wuxuuna sheegay in diyaargarowgu iyo qorshe ay yihiin in la diyaariyo 1.7 bilyan oo geedaha tallaalka ah. وهاجاك داوديال ولي waxaa si toos ah u daawanaysaan wararka laanta afka Soomaaliga ee telefishinka qaranka oo si toos ah idinkaga imanaysa Addis Ababa. wasaaradda biyaha waraabka iyo tamarta ayaa sheegtay in geedi socodka dhismaha biyo xidheenka dalkan Itoobiya ay kor u dhaaftay 80%. waxaa socda masrax wada tashi ah oo si wada jir ah ay u soo diyaariyeen isku dugidda xafiiska isku dugidda ka qaybgalka shacabka ee dhismaha iyo biyo xidheenka Itoobiya iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Itoobiya oo ay ka qayb qaadanayaan macadyada diimaha iyo ururada rayidka ah. ujeedada masraxan ayaa ah sidii ka qaybgalayaasha loogu faahfaahin lahaa khadka ay Itoobiya saaran tahay ee la xidhiidha arrimaha biyo xidheenka iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay kala kulmayso kadibna si ay iyagu dadweynaha ugu soo gudbiyaan. haddaba masraxan ayaa laga soo jeediyay in dhismaha biyo xidheenku uu kor u dhaafay 80%. waxaa abaalmarin la guddoonsiiyay maalqabeennada ka qayb qaadata hawlaha soo saarista macdanta. wariyahayga Maxamed Maxamuud ayaa faahfaahinaya. waxa uu hodan ku yahay khayraadka macdanta noocyadiisa kala duwan balse xeerkii loogu baahnaa sidii loogu talagalay Itoobiya uga faa'iideysato. haddaba iyadoo arrintaas laga duurayo waxaa munaasabad lagu aqoonsanayo oo laguna abaalmarinayo loo qabtay maalqabeennada kala duwan ee ka qayb qaata hawlaha soo saarka macdanta kala duwan ee khayraadka dabiiciga ah ee dalkeena ka jirta oo isla markaasina door weyn ku leh dhinaca soo saarka iyo ka faa'iideysiga khayraadka dabiiciga ah ee macdanta kala duwan ee dalka gudihiisa laga soo saaro iyadoo la adeegsanayo hab casriyeysan iyo waliba hab dhaqameedyo kala duwan. munaasabadaasi waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka ee Itoobiya Mudane Damaqa Makonno isla markaasina munaasabadaasi abaalmarinta ku guddoonsiiyay maalqabeennada doorka weyn ka qaatay dhinaca soo saarka macdanta noocyadeeda kala duwan. Mudane Damaqa Makonno wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka አድን ክምችት አቅምና ብዛት የታደለች እንደሞ dalkeenu khayraad badan oo dhinaca macdanta ayay hodan ku tahay balse maalqabeennadani maanta munaasabadani aan ku abaalmarinayno waa mid dariiqa u jeexaysa sidii aan uga faa'iideysan lahayd khayraadka kala duwan ee dabiiciga ah. waana mid ay dawladdu si wanaagsan uga mahadcelinayso doorka weyn ay ka qaateen dhinaca qodista macdanta iyo soo saarka kala duwan ee khayraadka macdanta. arrintaasina waa arrin dhiirigelin mudan oo isla markaasina tallaabo wanaagsan oo shacabka kale lagu dhiirigelinayo si looga faa'iideysan lahaa khayraadka dabiiciga ah ee dalkeena ka jira. dhinaca kale wasiirka macdanta iyo tamarta Engineer Takala Uma ayaa isaguna munaasabadaasi hadalkii uga soo jeediyay waxa uu ku baaqay in loo baahan yahay in sida dalalka kale ee caalamka ah iyadoo la adeegsanayo qalabyada noocyadiisa casriyeysan iyo waliba habka dhaqameedka ah iyo inta la isku lifaaqo in soo saar badan oo dhinaca khayraadka macdanta ah lagu soo saaro balse wadadii koobaad ee dhaqameedka ahayd ee lagu soo saarayay maadaama rafaad badan ay soo mareen waalidiintooda waxaa loo baahan yahay oo aan ka shaqayn doonaa sidii ay mustaqbalka caruurta aanu dhalnay ay u noqon lahayn kuwa si fudud macdanta khayraadkeeda ula soo wasiirka macdanta iyo tamarta Engineer Takala Uma ayaa isaguna sidaasi munaasabadaasi ka sheegay in loo baahan yahay in la sii xoojiyo hawlaha soo saarka khayraadka kala duwan ee dhinaca macdanta kor loogu qaadayo. Command Postiga hawlaha nabadeynta kooxda gobolka Aadaye ayaa kulan la yeeshay mas'uuliyiinta gobolkaasi Aadaye. kulankaasi oo ku saabsanaa sidii loo sii xoojin lahaa hawlaha amniga ee gobolkaasi. mar kale wariyahayga Maxamed Maxamuud.
tobaadii ka hor rabshadii ka jiray gobolka Ataye sidii wax looga qaban lahaa waxaa laga aasaasay guddi command post ka kooban oo isla markaasina amniga iyo nabadgelyada sidii caadiga ahayd u soo celin lahaa haddaba isku duwaha command postiga Lieutenant General Desta Abichu oo kulan la yeeshay mas'uuliyiinta kala duwan ayay ka wada hadleen sidii xaaladda amniga iyo nabadgelyada gobolka Matakal loo sii xoojin lahaa waxaana ay halkaasi kaga wada hadleen in ay jiraan kooxo kala duwan oo rabshad doonaya inay imika abuuraan waxaana uu tilmaamay Lieutenant General Desta Abichu in la isku dayay maalintii ciidda iyo waliba ciidii faasika dhexdeeda in la isku dayo rabshado laga dhex abuuro shacabka dhexdiisa waxaana uu sheegay arrintaasi in loo baahan yahay inay xubnaha maamulku ay kala shaqeeyaan command postiga oo isla markaasina tallaabooyinka lagu qaadayo xubnahaasi doonaya inay rabshadaha ka dhex abuuraan shacabka dhexdiisa ee danaha gaarka ah wata sidii wax looga qaban lahaa ay iska kaashadaan mas'uuliyiinta kala duwan ayaa soo kale halkaasi munaasabadaasi kulanka la yeeshay mas'uuliyiinta kala duwan ee gobolkaasi Ataye ay kaga wada hadleen sidii tallaabooyinka loo qaadi lahaa balse waqti xadirkan ay socoto sidii dadka dib u dhis loogu sameyn lahaa dhinaca kale warbixintu waxay tilmaamaysaa in geedi socodka gaadiidka ee gobolkaasi Ataye uu caadi u soo noqday dhaqdhaqaaqa shacabkuna uu caadi u soo noqday xaaladda nabadgelyaduna ay wanaagsan tahay balse loo baahan yahay hawlo dheeraad ah oo wax laga qabanayo xubnaha isku dayaya in shacabka dhexdiisa ku dhex dhuntaan oo rabshadana ka dhex abuuraan qaar ka mid ah aqoon-yahanka dalka ayaa siyaabo kala duwan u macneeyay hanaanka geedi socodka doorashada lixaad ee dalka iyo go'aankii ka soo yeedhay golaha doorashooyinka ee ku saabsanaa dib u dhigista doorashada mar kale wariyahayaga Nasradiin Xasan iyadoo ay la xidhiidha doorashada lixaad ee heer qaran ayaa waxaa la ogsoon yahay in golaha doorashooyinka Itoobiya uu muddo kordhin ku sameeyay waqtigii doorashada loo qabtay ay goluhu la qaateen xilli goluhu ay la qaateen shir asxaabta siyaasadeed ee dalka iyagoo u sababeeyey in ay jiraan xaalada kala duwan haddaba qaar ka mid ah sharciyaqaanada dalka oo warbaahinta qaranka siiyo waraysi ayaa xusay in goluhu uu ku saxsanaa go'aanka muddo kordhinta doorashada iyagoo oo ku tilmaamay in muhiim ay tahay in dalka laga qabto doorashooyin loo dhan yahay oo dimuqraadi ah sharciyaqaanada ayaa siyaabo kala duwan ku macneeyey hanaanka geedi socodka doorashada isla markaasna waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in dalka laga qabto doorasho xalaala inkasta oo hanaanka doorasho uu sidiisii u socdo ilaa waqti xadirkan waxaa isduwaan gelisay in ka badan 36 milyan oo codbixiyaal ah si ay uga qayb qaataan doorashada guud ee heer qaran ee dalka ka dhacaysa beesha nagu soo fodle haatanna wararka deegaanka naga soo gaadhaya hoos u dhac ayaa laga dareemayaa tirada dadka uu soo ridanayo fayraska corona toddobaadadii u dambeeyey sida ay sheegeen maamulka hosbitaalka Karamardha maamulka isbitaalka guud ee Karamardha ee magaalada Jijjiga ayaa sheegay in toddobaadadii u dambeeyay hoos u dhacay dadka uu soo rito xanuunka safmarka ah ee corona ee la soo gaarsiiyay isbitaalkan kadib markii dhowr toddobaad ka hor sida uu sheegay maamulku uu sarakac sameeyay laakiin muddadii rabadaanta ka horeysay iyo ilaa rabadaanta dhexdeedii aad buu fara badan noogu hayay xanuunka dadka u dhimanayana way fara badnaayeen dadka usoo jiirsanaya hosbitaalka u imanaya majority 90% dadka cabanayay ahaayeen waxyaabo la xidhiidha naqaska ku istaagay waxaas problemka jira ugu badan waxa weeyaan wacyigelinta bulshada weeyaan dadku way iska iloobeen in xanuunka meesha jiro hadda weli aan tallaalkii bilownay hosbitaalka tallaalkii covid-ka uu ka socdo oo la siinayo qofkii 65 ka weyn iyo qofkii 50 sano ka weyn ee xanuunada kale la nool sida xanuunada macaanka iyo dhiigkarka iyo waxyaabaha la halmaala xiiqda iyo xasla nool waan bilownay wax kale tallaalnay shaqaalaha dhammaan tallaalay almost half more than half way qaateen isbitaalka Karamardha muddo 9 bilood ah kii adeegyadii uu bixin jiray kadib markii laga dhigay xarun lagu daaweeyo dadka xanuunka aan soo rito ayaa markale dib u howlgalay 3 bilood ka hor waxaana weli lagu daaweeyaa gudaha isbitaalka dadka uu xanuunka soo ritay sida uu SRTV ay u sheegeen qayb ka mid ah xirfadlayaasha caafimaadka ee xaruntan dadka xanuunkan qaba lagu xanaaneeyo ka howlgala halkan hadda waxaa ku jira dad xanuunka qaba oo laga daweynayo aan rajaynayna inay ka bogsadaan haddii la yiraahdo waxay aad u baahan yihiin oo loo qabanaya dadku waxa ugu badan u baahan yihiin oxygen taweyn halkan loo keenayo bukaanka haddii uu oxygen u baahnayn banaanka lagu daweeyo xaafadiisa lagu karantiila laakiin dadka oxygen u baahan ka maarmin halkan ugu daweynaa imika waxa noo jiifa 3 waayeel ah oo waaweyn dadka sida badan halkan la soo dhigayo oxygen u baahan waxa u badan yihiin dad iyo dad xanuuno kala qaba daadeedu 60 ilaa 80 90 xataa jiraan dadka xanuunada qaba waxa kamid dadka dhiigkarka leh kuwa macaanka leh kuwa xiiqda qaba
iyo kuwo kale fara badan oo ka mid ah ayaa jira. bulshada adeega u soo doonada isbitaalkan oo maalintii celilisaan gaaraya 200 ruux ayaa u badan bulsho xoolo dhaqata beeraley ah waxaana bukaanada la keenay isbitaalkan laga keenaa qaybo ka mid ah meelo fofog oo ka mid ah deegaanka sida ay noo sheegeen ehelada bukaanada la jooga oo aan maanta kula kulanay gudaha isbitaalka. 7 bari baan halkan kala baranay 7 bari habeen iyo dharaar dhalinyarada caafimaadku wayna dul taagan tahay 2 goor qolo kormeer iyo dhakhaatiirta ka waaweynaa waynoo yimideen goor walba wayna soo korjoogtaan bukaanku wuxuu yahay waraaqaha halka ayaa loo dhan habeenkii bay ku qoraan oo dhiiggiisu kolba intuu yahay bay cabiraan xaaladiisa dhan bay eegaan. wallahi qaab fiican bay noo warayaan waxaan aragtay habeenkii way noo soo galaan maalintii 2-3 jeer nagu soo noqdaan wallahi si fiican bay noo warayaan dadka dhakhaatiirtu. isbitaalkani Karamarda oo ah isbitaal qadiimi ah oo dhismihiisa laga joogo muddo 73 sano ah ayaa waxaa ka howlgala ku dhawaad 40 dhakhaatiir oo takhasusyo kala duwan leh iyo xirfadlayaal caafimaad oo gaaraya 650 xirfadle laakiin sida uu maamulka isbitaalka ay noo sheegeen waxaa caqabad ka haysataa qaybo ka mid ah adeegyada aasaasiga ah. arrinta ugu weyn ka cabanayna ee cabashada ku badan ee ka jirta waa biyaha weeyaan oo aan joogto u imaaneen taas waa cabasho jirta kale waxyaabo la xiriira waxa weeyaan qalabka hospitaalku u baahan yahay oo kale dhowr jeer waxaan raadayay miisaaniyadda waanu ku darsanaa laakiin lama consider gareeyo looma qabto hospitaalada waan kala simanaa hospitaalada kale leerkuna saas oo kale labadaba kulli magaalada maalin qabnaa. wahagaag daawadayaal warkii waa naga intaa aan dib idin xasuusiyo qodobadii warka ugu door corona. wadamada soo koraya ee qaaradda tan Afrika ayaa la sheegay inay u baahan yihiin 330 bilyan oo dollar si ay uga soo kabtaan saameynta dhaqaale ee fayraska corona. ra'iisul wasaaraha dalkan Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in sharafta iyo xorriyadda dalkan Itoobiya una gorgortan gali karin. wahagaag daawadayaal guud ahaanba waxaanu intaasi ku soo afmeeraynaa warkii laanta afka Soomaaliga ee telefishinka qaranku idinku talagalay xilitabinteena wareed waad ku mahadsantihiin daawashadiina aniga khiyaarta kale ee tabinta warkan igala qayb qaadatay waxaan idinku dhaafeynaa nabadgelyo.